warhantida quraynu haysanaa waa dad bin aadan baa ugu hanti fiican waxay dhahdaan qoraacana oo Braziliana Paulo Coelho bay dhahdaan Paulo Coelho waa nimanka buugta ugu badan ee dunida la iibsada leh almost waxaan filayaa 150 million copies ka badan inay boogiskiisu gaadhayaan 50 milyan wax ka badan waa the second man bay dhahdaan dunida ba saaw wuxuu publish gareeya waa nin ahaan jiray waagii hore qoladan adabka wax tiriya heesaha iyo riwaayadaha iyo waxa sameeya markii dambana noqday qoraa novelladan iyo waxa la qoriyo waxa kan sameeya imagana United Nation ka Abu Malawi yahay rajul salaamka dunida qisaskiisa waxa kamid ah qisa yar oo kooban shaka yar oo kooban buu qoray shakada kooban uu qoray wuxuu yiri oday baa jariidada akhrisanayay buu yiri dabeetana inaan yar oo dhalay ayaa mashquuliyay markuu sidaada rugba ku yar ba su'aal weydiiyo mashquuliyo kan yar iska mashquuli buu isnaysiin marka intuu jariidadii rogay ayuu xaashimaabka dunidu ku sawiray intuu soo jeexay ayuu googooyay markaasuu intuu u dhibay buu halka fadhiiso dunidii dib isku rakib maabkii dunida samee wuxuu isla hadee ka yar dirtay kugu soo noqon maayo qisadu waxay sheegaysaa inaan 15 daqiiqo ba gaadhaynin markuu ka yara maqnaa ayuu soo noqday isagoo wada bahashi markaasuu yidhi waa tan waan sameeyay odaygu su'aal buu weydiiyey war ma hooyadaaba ku dhigtay jugraafiga buu ku yidhi markaasuu yidhi may hooyo jugraafiga ma dhigto dasaad u samaysay buu yidhi waraaqdan aad ii dhiibtay buu yidhi xaggan maabku ka sawir xaggeeda kale qof baa ku sawiraa qofkii un baa isku hagaajiyay buu yidhi gacanta iyo lugta iyo adinka iyo isugee dee dunidina way isku hagaagtay markaan qofkii isku hagaajiyay dabeetana weedhii inanka yar bay ka dhigeen weedh xikmad ah waa maamahan Soomaalidu ku baxaan oo kale weedhaas waxay tahay عندما أعدت بناء الإنسان أعدت بناء العالم buu yidhi markii aan qofkii bini aadamka hadhisay sawirkiisii ayaa adduunkiina ii dhismay waxay leeyihiin ilmaha yar uu iska yidhiye that's the real world noloshu waa taa qofka bini aadamka marka la dhiso ayay dunidu dhisantaa qofka bini aadamkii markuu dumana nolosha iyo duniduba way duntaa qofka bini aadamka aqeedadiisa mabaadi'diisa valueskiisa xorriyadiisa cadaaladii waxaasi markay dhismaanna adduunku wuu dhismaa bay yiraahdaan markay dumaanna wuu dumaa ولذلك باي مكا aqoon-yahanada waaweyn ee reer galbeedku aad u qaylinaya ay leeyihiin xadaaradeenni way dumaysaa maaha cid ka xoog badan inay timi waxay leeyihiin trendkaynu hayno wajahadaynu u jeedno ayaa ah meel ay wax ku dumayaan wadana waaweyn oo dunida ka midaba waxay tilmaamaan in wax kale ma haysanay bini aadam baanu haysanaa markaanu bini aadamka maal gashanay ayaanu nolosha adduunyo dhan bedelay yani wadankan yar ay yiraahdaan Japan xulay qofka bini aadamka aanu maal gashanay dabeetana noloshaanu bedelay sida awgeed culimada ka waranta sociology bulsho kuwa ka warama psychology kuwa ka warama dhaqaale iqtisaad economics kuwa ka warama siyaasa kuwa ka warama tarbiya iyo educational policy waxa dhamme waxay yiraahdaan one thing bay ku salaysatay bay yiraahdeen philosophy qofka bini aadamka maxaa u cuntama maxaa u fiican school of thoughts ka kala gadisani waxay sifaynayaan qofka bini aadamka wixii ay u arkayeen iyagu inuu u fiican yahay dabeetana politicalka iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo ijtimaaca iyo bulshada iyo waxa dhamma waxa ku salaysan tahay qofkan bini aadamka maxaa u fiican see loo horumariyaa sada xaragtiyada kooban bay dunidoo dhan rumaysantay markaa qolow aragta qofka bini aadamka inuu shaydaan yahay imtixaan inuu yahay asalkiisu inuu shar yahay markaa systemka iyo dhaqaalaha iyo waxa dhamma inay ku salaysnaadaan qofkan in la xakameeyo qofkan in la rifo qofkan in la controlo how much you do that ayaad nolosha horumaraysa bay qabaan waa مثلا even philosophy of Christianity ba kamida Christianity ku rumaysan yahay in lagu dhashay khati'a qof walba eedii nabi maxamed nabi aadam inay dhinac ka saaran tahay oo dadka oo dhami dambiilayaal yihiin ay u baahan yihiin salvation iyo wixii rifi lahaa iyo qurunka ka rogi lahaa qayb kale oo kamid waxay rumaysan yihiin insaanku inuu khayr yahay wanaag inuu yahay wax yar oo dulduula ka dhac laakiin waa wanaag
وفلسفيا مانتا جاك روسو يعني كاسو دمي political issues كودا waxay ku saleeyeen asalka insaanku inuu yahay mid khayra qolo saddexaad oo materialist ka u badani waxay rumaysan yihiin insaanku inuu yahay safxa bayda waa page maran bay leeyihiin culture ka form gareeya waxba kuma jiraan isaga islaamku wuxuu rumaysan yahay qofka bini'aadamka xagga khayrka inuu badan yahay laakiin nawaasic shar oo shahwaat nafsiga waxa kanaya nawaasic alkhayr bayna ku jiraan in hadaynahu najdayn nuyi labada jid baynu qaadi karo laakiin asalku inuu yahay fitra salima walaqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim ba ilahi bini'aadamka waxaan u abuuray ahsanu taqwim yani waxa ilaahay qofka bini'aadamka fitradiisa hadii la isu daayo fitradu abuurkiisa yani waxa jira bay leeyna qoomaha in philosophy wax axioms la yiraahdo oo ah waxyaabaha aan proofs ka u baahnayn oo ah qofka bini'aadamka wax naturally u rumaysay مثلا haddaan qalinka qaado uma baahna daliil inaan caagada biyo qaadi karo بمجرد inaan qalinka qaaday baan waxaan garanayaa maxay inaan بمجرد inaan caagada qaaday biyaha baan waxaan ku garan karaa maxay inaan qalinka qaadi karo إلى كيو إنابن سيدا كي وما بحنا بيجي ده دليل ساينسك هي فلسفية هي وحنا دم وحكوس ليسي وحي أكسم يمسكي هذا سكال هذا نط الماما إلهي القرآن كوحنا قلت الماما يا أبور كني مبلغنا ينك قاضي وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ربي جين ما هين ربي ويديي أما الساينس كدوني ده على مدى كم موضعين الشيء جيان إنه إلهي ربي جودي هاي سأوجد بإلهي وحكت الماما يفاقم وجهك للدين الحنيف فاقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله دين تقوم من حنيف كا الشركة كدر وافقسم فطرة قفك بني آدم كا كقومي وجهك قبل الماما هذا واحد لنا هاي إنسان كوح يقول ما بفطرته ما حمائه نوازع ده خارجك وحن environment كدبدا وحكا إيمانية أي أنت بدل مية ولذلك النبي يقول حليه إلهي بوحيلي إني خلقت عبادي حنفاء حنبوري الضمه يقول يقوم من لما أنتم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم الشياطين تاويررتي أم الشياطين الإنس هالنقضان والشياطين الجن هالنقضان دبتنا يجا الدين توديك كحي وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا دبوا دنا دنا ينشوغنو واحد شوغا ده تريني dad la tababaray oo loo tababaray waxa loo dhiibay inay qofka bini'aadamka ka dhaadhicin karaan dadkaasi ha noqdo wasaaradda waxbarashada ilaa tacliim sare ha noqdo iclaanaadka iyo iclaamka iyo aflaamta iyo waxaan dadka sameeya ha noqdo adabka iyo riwaayadaha iyo waxa kan dadka qora هالنقطة وحاصل ضدي وحي أترين جريسين إن قفك بني آدم كان مدحي سجدي كران ولذلك يموستر المركز نشوفنا وحلا صناعة الرأي أركتدا والله السماية بيلين سياسيين برشة حقي اللي دونا بالوجه دي والله السماية هذا بقى تريدوا حيسكوا فقصنتاي تعليمت وحبرشادو إن تي مالها أقوم مهمسن إسبدل كوكرداه waddan walba siyaasiyiinta jooga waxay jecel yihiin bulshadoodu inay homogeneous group noqoto mutajaanis dad dhan wada jeeda iyadoo diversity tira badan uu ka dhex jiro kala gedisnaan badan ay jirto ayaa haddana waxa la isku dayayaa bulshadaas inay si qura wax u wada aragto si qura wada noolaan karto wada socon karto bulshada ay homogeneous ka tahay bay isku xidhnaanshiheedu ku xoogan yihiin isla markaa maamulideeduna ay ka fududahay markastoo dadka aragtidiisu isku dhadhow yahay in la maamulaa waa wax fudud markastoo dadka aragtidiisu aad u kala durugsan tahayna in la isku hayo la maamulaa waa wax adag haddaba waxay yidhaahdaan waxbarashadu
waa meesha dadka isku aragtida lagaga dhigo. Compulsory education bay waddanadani samaysteen. dadka waddanka degan oo dhami 10 sano ama 9 sannadood oo waxbarasho waa inaad qasab ku martaa. 9 sano ama 10 sano waxa lagu barayaa bulshadan sida loo noolaado. hadday afkooda tay, hadday dhaqankooda tay, hadday valueskooda tay, hadday waxa qiimeynayaan tahay, bulshadan waddan kale siday u wada noolaan lahayd baa la baraa. wixii ka sii dambeeya tacliimina horumarka waddanka buu ka fakaraya xayaat kariima qofku sidii uu heli lahaa. ولذلك ayaa isticmaalku markuu qabsaday waddanadii muslimiinta oo kale. India waddan weyn oo islaamiya ahaan jirtay, boqortooyin waaweyn oo islaamiyana ka jiri jiray. Ingiriiska u yimi ayar buu u galay. Ingiriisku waddanka xoog kuma qabsanin, laakiin markii hore meel yaraan shaah ka beertay siiya buu yidhi, meel bay siiyeenoo shaah buu beertayo. markii dambe wuxuu yidhi waa beertii waa layga weerweerarayaa ee waxoogaa huba ha lay ogolaado inaan la soo dogo beerta ku ilaashado, security baan u baahnay. hub baa loo ogolaaday, beertiisi buu ilaashaday. markii dambe boqorradii meesha joogay wixii sida Soomaalida isdilayso kale isdildilay, qoloba mar bay u dustaayoo tiraahdaa waxoogaa hubano qol uu taageera sidii ugu wadu ka wada qaaday. waddankana wuu qabsaday. dabeetana system of education buu sameeyey. system of education kaasa waxaa ka warramaya niman culamo oo raggii waagaa joogi jiraya. waxaa ka mid ah nin gabyaaya oo la yidhaahdaa akbar ilaah al-abadi. akbar ilaah al-abadi waa nin lawyer qaadi ahaan jiray, markii dambena gabyaa noqday. gabayadiisi waxay u badan yihiin gabayadan sukhriyada ee jees-jeeska u badan ee fukaahada ee dadku inta badan ay qabtaan. marka gabay buu tiriyey uu kaga warramayo systemka waxbarasho meeshiga jira. wuxuu leeyahay gabaygiisa markay af carabi ku tarjumaan sheekh الندوي ayaa tarjumaya. wuxuu leeyahay yaa xasrata calaa fircawnin dahab. maxaa murugo raacday ayuu ka warramaya fircoonkii tegey. fircawn reer banu israa'iil buu ka shakiyey soo maaha, dowladnimadiisuu ka shakiyey. deetana xukuma buu soo rogay inaanay wiil dhalin. wixii ilme ee reer banu israa'iil dhalaan in la gowraco, la dilo, caruurnimada lagu dilo. ninkani wuxuu leeyahay markaa alla maxaa ceeb raacday buu leeyahay fircoonkii reer banu israa'iil. kaana calayhi an yunshi'a kulliyatan fii masr falaa yudkar bifadiicati qatli lawlaad buu leeyahay. wuxuun bay ahayd buu yidhi inuu system waxbarashiyo kulliyada sameeyo oo ceebta ah caruur buu laayay uu ka baxsado. yacni carruurtun buu caqligooda bedeli lahaa buu leeyahay. muu waxbarasho sameeya buu leeyahay oo carruurta caqligooda bedela intuu laynayo ceebta ahayd carruurtuu laayay ayuu ka badbaadi lahaa. yacni wuxuu tilmaamayaa sida ay waxbarashadu u bedesho caqliga bini aadamka. walidalik ayaa nin philosoph ahaa oo muslima maxamed iqbaal lo odhan jiray, Cambridge University macallinna ka ahaan jiray, waxna ka bartay hal qarni ka hor 1905kii meelahaasi. markii dambena Munich University ka baxay. waa nin philosoph ah, waana nin gabyaaya. inta badan way yartay philosoph gabyaa. wuxuu ahaa ninkani nin dhanna philosoph ah dhanna gabyaaya oo afkaartiisa markaa ku dhiiba gabay ahaan. ayaa wuxuu ka warramay waxbarashada. markaasu wuxuu ku tilmaamayaa isna tacliimtu buu yidhi atacliim huwa alxaamud alladii yudiibu shakhsiya. waa aysiidhka bini aadamka intay dhalaaliso alkaa'in alxay ayay dhalaalisaa buu leeyahy. uma yukawinuha kamaa yashaa. dabeetana siduu doono ayuu dib ugu dhisi karaa. waxaasoo dhan macnaheedu waa maxay? ma waxbarashadaynu diidanay baa? maya. horumarka iyo nololeed ama adduunka horumarkiisa iyo aakhiro horumarkeedu labaduba waxbarasho ku xidhan yihiin. diintu saasay sheegaysa. haddaad rabto adduunka inaad horumarto iyo haddaad rabto aakhiro inaad horumartaba labaduba waxay ku xidhan tahay maxay? waxbarashay ku xidhan tahay. saa awgeed baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa nebi aadam markii loo soo diray adduunka kan wacallama aadama alasmaa'a kullaha. waxbaa la soo baray isagoo aqoon le buu yimi. saas baa diintan islaamiga ah wixii ugu horreeyee soo dega iyadoo meesha ay ku soo degtay ahayd meel saxaaro ah, waan aqooni ka jirin oo thaqaafa ka jirin oo waxba ka jirin oo dad aqoon tixgeliya dadka ugu fog ah, ayaa haddana qur-aanka wixii u soo hordegay
وحا اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم wax cilmiga iyo qalinka iyo waxa ka waramaya bal suuradii saddexaad ama afraad xataa quraanka soo degta hadana nuun wal qalam wama yasturun bih yani iyadoo laga yaabo carabi waxay u baahnayd inay ugu badnaan lahayd waxyaabo kale ayaa quraankii ugu soo hordagay wuxuu ka waramaya maxay qadiyatul ilm way bulsho ma asaasanto hadaan cilmi jirin إلهينا النبي سي محمد عليه الصلاة والسلام وقال الله يما نشيغانا إنه وحبري وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما بإله إليه وحلقوا سودة شيء كتابك يا حكمة ده سنة ده وحانا اللغو بري وحانا تقررين بإله يري كاسنا وإلهي ديرات كيسوين بإله إليه وقال لك سيه يعني إلهي وحو النبي يسوق قلت شيختين محي إن وحلا بري نبي قلنا مركو إلهي بري يدعو عدا قرآنك وقلتها الله حكم ده وقل ربي زدني علما إله وقوني كردي بل النبي عليه الصلاة والسلام صلاة ده مركو تكاد الصبح وحيابه اللازم يشري الصبح كستوى أخري يشري وحكم ده اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إله وحكو ويدي سنة يا علمي واحتره عمل هذا قبشه يا رزاق حلال وطيبة صبح كست صلاة الصبح مركو كبحه ودعوينكو آخري شري إلهي وحكم قال شري لكن اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع أقونا واحتر لحين هذا بقى أقونا قلبيتك تالا ودنا دن تالا أركتي قفك مسلم كامرك لغا وحي سوق جرتاه وواحتر أدون وغبش نوتا دخل نوتا markaan waxbarashada ka waramayno waxay dhaahdaan aqoon-yahanadu waxbarashada dunida taalo dhan saddex qaybood uma loo qaybiyaa waxbarashada dunida taalo dhan waxaan waxbarashada xoog uga waramaya waxa weeyaan de ilmahan intaynu school geeyno ayna wax daba ku darsanin saawgeed waxaan rabaa inaan tilmaamo waxbarashadu khatarteeda iyo waxa loo dhigaa wuxuu yahay iyo natiijada productka ay soo saartay saynu arkarno culumta bay yiraahdeen dunida taalo waa saddex qaybood qayb waa la kala qarsadaa la ismana siiyo sinaba la isuguma ogolaado basaasnimada dunida ugu weynaa iyaday ka dhacdaa qaybna waa la isku qasbaa sankaa la iska geliyaa waa la isa siiyaa waa la maalgeliyaa qofka baranaya qaybna waa la kala gataa bay yidhaahdaan waxbarashada dunida taallaa bay yidhahdaan waa saddexdaa qaybood qaybta koowaad يعني سينما الله يسوسين واحد هو علوم السيادة وعلوم كانت ودن إنه دقالات الدنيا أما هجامية أما حوج الدنيا هجامية أما وحن هجامية وعلوم كوسابسن بيدا مثلا نكلير ويبان يوحي كوسابسن لا يسمى أقولا عدي حرق ده حق هذا صايع اقتنع هدي لا تومي كروين لا توبا وعلوم كوسابسن علم الفضاء عركة يوحن لا درا يوحي كوسابسن وعلوم كوسابسن هوب كوردن يتكنولوجيا كوسابسن وعلوم كوسابسن كور ايديها اي ليهن شركات كما وين الدنيا كجرا شركتنا ما بحسو كور ايديا مثلا كوكا كولا بقول يا دور سنه هذا السكرتي ويلين مركز الدنيا لبا قف قودا حتى waxa meeshka jiro dhan meel bay ku qarsoontay bank bay taala laba engineer qura loo sheega waxa la isugu qaldo that's all cid kale oogay ma jirto qol ya dhowr sanadood bay hadda maraysaa idan aqoomaha dhaqaalaha abuura xooga abuura taliska abuura waxa abuura la isma siiyo waxay yiraahdaan dunida marka la eego basaasnimada ugu badanina waa meesha ay ka jirto waxa ugu badan la isbasaasa waa in aqoon la xado waliba bay leeyihiin waa meelaha inta isku jaalka ay xataa isbasaasaan isxadaan sanada qaar bay waxay leeyihiin westernka basaasnimadii ugu badnaa isku sameeyay waxaanay ku saabsiisan tahay maxay core ideas la kala xadayo oo waxa ku saabsan aqoonta ayada la isma siiyo ninkii agteeda soo marana waa laga durkiyaa waana ta dunida loogu taliyo dhaqaalaha dunidana lagu hayo
taasi waa qayb kale waxay yidhaahdaan cid waliba way faafisaa dowladdu waliba waxay isku daydaa safaaradaha ay dunida ku leedahay inay qayb ka mida safaaradeeda ka dhigto qaybtaa wax faafisa oo aqoonta ku saabsan bay yidhaahdaan identity-ga waddanku leeyahay hadday diintay hadday culture-tay hadday values-tay hadday taariikh tahay hadday af tahay safaaradaha dunida safaarad kastoo aad timaado safaaraddu waxay leedahay qayb culture-ka ah safaaraddu waxay leedahay maxay maktabi thaqaafi maktabi thaqaafi muxuu sameeyaa wuxuu hirgelinayaa taariikhdii waddankan inuu dadka baro waxay rumaysan yihiin valueskooda inuu baro afkooda inuu baro ummad waliba waxay jeceshay afkeedu inuu faafo oo uu dunida gaadho qaybtaasi bay yidhaahdaan waddan waliba deeqsi buu ku yihi dunida inta kale diintiisa iyo dhaqankiisa iyo afkiisa iyo valueskiisa imka western oo dhan baad maqlaysaa waxay leeyihiin xuquuqul bini aadamku ku xidhan yahay donorsku waxay bixinayaan xuquuqda la sheegaya waa maxay waa afkaartay reer galbeedku rumaysan yihiin ama LBGT dheh ama kandhe ama waxandhe ama waxandhe waxoodaasay ku xidhan yahay deeqaha la bixinayo waxa la samaynayo politicska booska la iska taagayo idan waa valueskoodii bay faafinayaan waa xun iyo waa san iyo kaas iska damayso waa valueskoodii bay faafinayaan waddan waliba wuxuu tijaabinayaa afkiisa siduu u noqon lahaa maxay af international oo dunida laga yaqaano waddan waliba wuxuu raadcaynayaa taariikhtiisa sidii loo baran lahaa ay u noqon lahayd kaana shakaa la iska geliyaa waddan waliba inuu maalgeliyo waana meesha ugu badan ee wasaaradda waxbarashadu qabato higher education marka laga yimaado wasaaraddan waxbarashadu waxa ugu weyn ay qabataa waxa weeyaan culture iyo values iyo afka iyo dhaqanka iyo diinta iyo aragtida ay dadku leeyihiin inay ilaaliso oo dadka la baro qaybna bay yidhaahdeen cilmiga ka midi waa qaybta bini aadamku wadaago oo waa la kala gataa una iyada lacagtaada dhakhtarnimada iyo injineernimada iyo waxyaabaha kanaynu sheegno idaarada iyo handasada iyo waxaa la kala barto oo dhan jaamacadkaad fiigaaga haddaad la baxdo waa maxay waa kuu bannaantay therefore iyada waa la kala gataa un professorkana waad gadan kartaa jaamacaddana ardaygaaga waad keeni kartaa waa suuqa dhaqaale ee furan ee obinka idan waxay dhahaan tacliinta dunidu waa saddexdaa qaybood waa qayb aan laysu ogolayn ee secrets oo cid waliba inay ilaashato rabto qayb sanka la iska gelinayo cid waliba inay faafiso ay rabto iyo qayb mushtarak bini aadamku u yahay oo cid waliba ay gadayso